السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألابتنا وقيبتي بباصيرتا سين ودوكسونا ورت بباصيرتو waxay ka bilaabantaa waa cilad ka timaada xagga hoose calooshoon way runtii qofka hadii calooshiisu bad qabtana babaasiir iyo dhamaan xanuunada kala dhan uu ka bad qaba hadii ay jirto ciladaasina runtii waxa weeye calooshiisu ciladaysan tahay waxa soo dhan runtii waa la saaxiib weeye markaasina wadoogsoonahay babaasiirtu qofka laba meelood ka qabata waa in ma inay jirto xagga hoose calooshiisa ay ciladi jirto ima inuu duburta fin ka soo baxay labada midkood weeye labadana way israaci karaan midkoodna way isku arki karaa qofku marka sida caadiga waxa loo isticmaalaa saddexdan shay ayaa loo isticmaalaa babaasiirta mid waxa weeye wacaagada ugu xigta xagga koonaha wacaagad sharaab oo dareera ah waxa aad ugu wanaagsan tahay dhamaan inta ur ku jirta oo sifaysa oo nidaamisa oo runtii way ka saartaa dhamaan waxyaabaha ku jiro dhan bakteeriyooyinka kala duwan sidoo kale waxyaabaha calool istaaga waxa soo dhan ay sifaysa dhamaan cilad kasto xagga hoose ur ku jirta bay aad ugu wanaagsan tahay nadiifisa runtii waxay dilaysaa bakteeriyooyinka sababayay aday noqoto gastri aday noqoto gaardilaami aday noqoto kuwan sabab babaasiirta soo kale calooshii qofkan waxa ka dhigaysaa mid furfuran oo jilicsan kiniinka ku xiga waxa la fields of green baa la dhahaa isaguna wuxuu aad ugu wanaagsan yahay runtii inta ur ku jirta oo wuxuu sameeyaa caloosha kala gas buu yeelaa sidoo kale bakteeriyooyinka caloosha ku dhashay handfulka dhibaatada lana aad buu la dagaalamaa creamkan koonaha ugu xiga aloe vera gel baa la yiraahdaa isaga waxa lagu talagalay in la mariyo finka duburta ka soo baxa qofka oo waxa jirta qofku marka xagga hoose babaasiirtu ku xanuunayso duburtana fin baa ka soo baxa marka finkaas la mariyo finka qofku 7 cisho haduu mariyo creamkan saasuu ku deynaya insha Allah marka waxa la qaadanayaa alaabtan laba waqti subaxii habeenkii waa la qaadanayaa caagada 6 fur buu ka cabayaa subaxii habeenkii cunadana bar buu ka horeysiinayaa kiniinkana soo kale cunada kadib buu hal xabo qaadanaya habeenkii iyo hal xabo waxa weeye subaxii cunada kadib yadana creamka isaga wuxuu iska marsanaya xilli alaale xilligu jecel yahay 30 minute buu deynaya markii uu ka meedhaya waxa xasuusin mudan alaabtan kaliya inaan loo isticmaalin babaasiirta laakiin se loo isticmaalo dhamaan ciladaha caloosha ku yimaada number 1 waxay ka mid tahay gastriga oo kale ayaa aad ugu wanaagsan tahay runtii waa shayga koobaad ee gastriga loo isticmaalo weeye sidoo kale insha Allah marka dhamaantiin baad boo salaamantiin